السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad baan idin salaamay dhammaan ardayda kororsa aqoon. waxaan idin xasuusinaya waxoogaa update course muddo badan ardaydu soo codsanayeen oo hadda aan soo gelinay. course-kaas oo ahaa markaa full stack web development. marka haddaan galno qaybtan courseska markii hore waxaa inoogu jiray wax web development ah dabcan HTML iyo CSS sidoo kale waxaa inoogu jiray website-ka JavaScript ayaynu baran jirnay inoogu jiray. marka aan laga hadlin marka WordPress oo kale ama kuwa content management systems kan la isticmaalay. sidoo kale markii hore waxaa inoogu jiray databases sida SQL iyo MySQL labadaas ay inoogu jiray. casharkan maanta ama course-kan hadda aan soo gelinay wixii oo dhan isu koobsanaya marka iyo qaybtii back end-ga. marka course-kan haddaan soo furno waxaad ku baran doontaa qaybaha basics-ka, waxaad baran doontaa HTML-ka, CSS-ka, Bootstrap-ka, waxaad baran doontaa projects baad mar walba samayn doontaa dabcan, Tailwind, JavaScript, DOM manipulation-kii waxaad baran doontaa sidoo kale. waxaanu samayn doonaa projects kala duwan inagoo isticmaalna vanilla JavaScript, Git iyo GitHub baan baran doonaa, React, Node.js iyo Express. haddaynu marka roadmap-ka isla eegno wuxuu noqon doonaa roadmap-ka course-kani waxaanu kow baran doonaa wax loo yaqaano HTML iyo CSS. waxaa kaloo ku baran doontaa marka Bootstrap oo ah marka CSS framework. waxaa kaloo baran doonaa Tailwind oo iyaduna marka ah CSS framework oo ku fududeynaysa marka code-kii aad qori lahayd CSS. marka Tailwind isticmaalayso uma baahan doontid inaad CSS code qorto, laakiin waxaad u baahan tahay inaad taqaano concepts-kii CSS-ka. waxaa inta inoogu xiga oo qof walba baran doonaa JavaScript oo ah programming language-ka u horreeya aan baran doono intaan course-ka guda jirno. waxaan baran doonaa version control systems-ka gaar ahaan Git iyo GitHub. waxaa inta inoogu xiga oo baran doonaa React ayaan baran doonaa. marka intaa waxa dhex socda technologies kala duwan oo inta badan intimaynka baan soo qaadanana, laakiin waxaan sidoo kale baran doonaa React. waxaan u gudbi doonaa marka qaybta back end-ga. back end-ga waxaan horeysiin doonaa oo baran doonaa Node iyo Express. Node iyo Express barano waxaanu isticmaali doonaa sidoo kale Mango iyo Mongoose ama MongoDB iyo Mongoose. waxaan samayn doonaa sidoo kale aan baran doonaa authentication-ka oo ama user management-ka in qofku yani login soo samayn karo, la check garan karo qofkani already system-ka ma ku jiray mise kuma jiro database-ka. inagoo isticmaalna JWT iyo Google authentication labadaba. intaa markaan samayno sidoo kale waxaan baran doonaa dabcan MongoDB maadaama uu yahay non-relational database. dhinacii relationalkana waxaan baran doonaa marka Prisma oo u dhigmata Mongoose. object relational mapping aynu odhan karnaa weyaan Prisma. sidoo kale waxaan baran doonaa mid ka mid relational database management systemyada. relational database management systems waa database management systemyada xogta ku kaydiya tableska sida SQL Server, MySQL ama MySQL, Postgres, SQLite, kuwaas ayaa loo yaqaana relational database management system. sidoo kale iyagana markaan barano waxaan raacin doonaa qaybta authentication-kana waan raacin doonaa. intaa markaan samayno waxaan dhisi doonaa projects, full stack projects ama projects front end iyo back end labadaba wata. dabcan waan deploy garayn doonaa sidoo kale projectska oo online-ka ama waxaynu saari doonaa si cid walba usoo access garan karto online baan ka dhigi doonaa. marka course-kan intaas ayuu noqon doonaa ama inaasaan ku baran doonaa, laakiin intan waxaa ku dhex jira marka technologies kala duwan sidoo kale tips iyo tricks kala duwan oo fara badan. marka inihii mainka ahaa unbaan hadda soo qaadanay, laakiin intan iyo in ka badan ayaynu course-keena ku baran doonaa. waana project based oo projects fara badan ama markaynu qayb baranaba projects ayaa ku jira, challenges ayaa ku jira. marka inahaas ayaan rabay in arday badan oo soo codsanaysay ardaydii hore ka mid ahayd in aan idin la socodsiiyo.